runtii maanta mucjiza meeshaan ku aragnay saddexdii maalin ugu dambeysay waxaa la baafinayay gabar yar oo ilmahan iskuulka dhigta ah masaajidada xaafadda iyo xitaa warbaahinta qaarkeed aa baafin ku samaynaysay runtii gabadhiya waxaa lagu arkay saakii digsi weyn oo dugsiyada sabta ayadoo ku dhex jirto digsi weyn kala kor saaran yahay joodaryaal iyo alaab ka korayso ciidda subaxdii hore waxay dhahayeen doolimaa guriga ku dhintay wax sacmal laakiin markii la galay waxaa la arkay gabadhii la baafinayo oo go'go'day oo meesha ku jirto waxyaabaha mucjisada waxaa ka mid ah inay xirxirneed oo lugaha iyo gacmaha iyo ka xirneed runtii tuhunaa jiro oo qoladii CID da imaaday ma gowracnayn gabadha laakiin fal kale inuu dhib ku dhacayaa loo malaynaa maadaama guriga hooyada ay ka maqnayd aabbihii ka maqnaay guriga cidla ahay laba wiil oo qaraabal ahna ay joogtay oo qaangaare ah marka iskuulka markay ka imaaday in dhib loo geystay wasas camal laga shakisan yahay kadibna uu dil saas loogu sameeyay xarigay laakiin ku cijisneed gabadha gurigeeda waa qolkoodii aab lagu xirayba marka waxaa la yaab leh familka qolkan ma isticmaalayeen mase uu iska xirnaay in la ogaado dhibka ku dhacay ma kufsiya ma si kale loo dilay ma raggaana ka dambeeyay ma cid kale ka dambeysay runtii baaritaana jiro qoyska waxaa la joogeen laba wiil oo qaraabe ah hooyada iyo aabbaha iyo ilmaha waxaa la joogeen wiilal qaraabe ah abti ma u yahay mase adeer u yahay wiilal saas camal joogeen wiil ka mid ah iskuul jira wiil ka mid ah nala jooga oo xogaa dhagaha ka culus dhammaantood saldhigan geed doonaa meedka CID da la geynaa waxaa la baaraa gabadhan qaabka u dhimatay